beriyaha ka mid ah waxaa jirtay inan yar oo hooyadeed dhimatay, waxayna la nooleed aabaheed iyo gabadhuu qabo. Aabaheed iyo gabadhuu qabo waxay ahayd mid walba wax walba u dirsatay, ilaa habeenkii ayay wax u diri jirtay. Tayarna may ahayn mid diida, wax walbay ku tiraahdo ii keena ama ii qabo way u qaban jirtay, wayna u dul qaadan jirtay dulmiga ay ku wado. Teeda yarna waxay ahayd mid aad u koolkoolisa oo aabaheed dhalay ee islaantan addada waa dhashay. Maalin bay ku tiri, dibadda waxa ka daaya roob, mana dooni karaya alaabtii aad ii dirtay. Waxay ku tiri, naaya anigu waxaa kaama yeelaye alaabta doon, haddii kale sidii baan kuu geli. Inatii yareed waa ay doontay, alaabtiina naagtii way ka qaaday. Dibaddii iyo aad u roob u da'ayana waa ay tagtay. Markay soo noqday dharkeygiiyo dhintay iyo alaabtiiyo qoyday. Gabadhii aabaheed qabay aad iyo aad bay u xanaaqday, wayna dharbaaxday. Waxayna ku tiri, alaabta anuma soo qoy baan kugu yidhi, naaya waa maxay waxaana samaynaysaa, waad caniidaysaa. Markaasuu aabaheed yimaaday, wuuna ku yidhi, natayra adiga ayaa dirsaday, una dirsaday roobka, alaabta ma aynay soo qori weydaa. Markaasay ku tiri, waryaan waxaa ma yeelayo, caawana waan ciqaabayaa. Waxaynay taagnaanaysaa bannaanka, habeenkiina halkii buu tii yaree roobkii iyo dhaxantii ku wada hashay. Iyaduna sidii bay ooyeysay oy lahayd, waa niga dulmi baa laygu hayaa, waxbana maas. Markii dambe ayuu aabaheedna markuu gabadhii kari waayey, iyaduna diiday inayna tiira ciqaabta kasoo fasaxdo. Waxay ku tiri, waryaa aniga ayay taala waxaan samaynaya iska tag. Ayuu isna iskaga tegay. Markii dambena waxa u yeedhay tii yarayd ayay u yeedhay, ku tiri, hooye nataydiyey orad u yeedhtii weelka haynaga maydhee. Waxaad ku tidhahdaa hooyaa kuu yeersa. Tii yaraydna waxay ku tiri, hooyaa kuu yeersay kaalay siday weelkii u maydho meeshana u hagaajiso. Markaa un baana la cafinayay. Islaantii waxay ku tiri, orad soco haddaba iminkaan ku cafiyey. Aroortii dambe ayay islaantu nin garaacday, waxayna ku tiri, tayar ma doonayo ee waxaan rabaa inaad iga xadid, lacagna anigaa ku siinaya, meesha basaskana aan iskugu imano. Tii yareed bay u timid iyadoo ismiskiininasoo ku leh, maanta dhar baan inoo soo iibinayaaye kaalay raac, dhar iyo kaba baan kuu soo iibinayaa. Tayarna waxay ku tiri, waayahay ina mari. Wayse soo raaceen, waxay yimaadeen meeshii kabaha. Waxay ku tiri, inataydii dharkuuma iibinayo ee waxaad samaysaa halkan joog, nin ayaa ku iman doona, ninkaas ayaad raaci. Tayarna way yaabanayd, dadkiina way soo eegayeen tayaree meesha lagaga tegay. Mar dambe ayuu nin u yimid oo ku yidhi, adeerayna mari, aniga ayaa ku kaxaynayay, hooyadaana waxay ku tiri kaxeeyo meel fiican ina taadagee. Markaasay soo raacday. Markii dambe odaygii waxay weydiisay, adeer adigu yaa tahay, halkeenad ii geynaysaa? Markaasuu ku yidhi, alla meel baan ku geynaya aad u fiican. Tii yareed baa shikiday, wayna qaniintay, wayna iskaga carartay. Wuuna soo daba cararayay, wuxuu ku lahaanaa joog inatayda yareeda joog. Iyaduna siday u cararaysay waxa ku dhacday gabadh kale. Gabadhkiibay uga sheekaysay wixii ku dhaco oo dhan. Gabadhiina waxay ku tiri, ii caawi oo iga qarin ninkaas. Ninkiina si walba wuu raadiyey, wuu waayey, si walba wuu raadiyey, wuxuuna lahaa tig way dilaysaa haddaan waaye. Markii dambuu soo garaaca uu ku yidhi, naayaahe tii yareed waan waaye. Tii kalena waxay ku tiri, aniga ayaad ii sheegaysaa inaad inatii yareed weyday, waa in dhaqso u heshid, haddii kale waan khashif maamaa ee dhaqso u har, kaale anigaa kula soo raadinaya. Si walba way u raadiyeen. Waxay ku tiri, lacagtaana kuma siinay ilaa intaad heshid. Markii dambe gabadh aad u naxariisa la kulantay. Gabadhii baa ku tiri, ha baqan, gurigeegii bay geysay. Waxayna u yeedhay inanay dhashay. Inatii bay ku tiri, hooyo inata yar cunto soo sii. Inatiina waxay ku tiri, waayahay hooyo, si fiicanna ula dhaqan bay ku tiri, oo sida walaashaayoo kale u soo dhawee, cuntadana sii. Cuntadiina waa la siiyey. Inatii yareedna waxay ku tiri, ii sheeg magacaagii. Magaceegii bay u sheegtay. Waxay ku tiri, maxaa halkan ku keenay, muxuuna ninku kaa rabay? Waxay uga sheekaysay walbay adeedeed ku samayn jirtay. Inatii yareedii hooyadeedna aad iyo aad bay wala yaabeen sida tayaree naqal loola dhaqmayay. Waxayna ku yidhaahdeen, waad nala joogi kartaa inta aad rabtid.